waxaan si gaar ah u hambaliyeynayaa maanta madaxa idaacada Beerlulo agaasimaheeda iyo shaqaalaha sanad guuradii saddexaad ee maxaan ku iraahdaa Beerlulo radio. waxaan leeyahay mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo ayaan leeyahay. waana maxaan ku iraahdaa sanad guuradeedii saddexaad markii saddexdaas sano ay jirtay maalintii la bilaabay iyo hadda intii ka dhaxaysay sanad guuradeeda saddexaad waan u taagnaa ilaahay maadiis. ilaahay waxaan ka rajaynayaa intaas iyo ka badan inaan mataqaanaa ilaahay nagu gaarsiiyo inaan mataqaanaa sidaan ula shaqeyno iyo siday noogu weyn tahayba ilaahay u garab galay idaacada Beerlulo waa laga hadlay. xaqiiqatan aniga waxaan dhihi karaa waa idaacadaha waana idaacada bulshada oo maxaan ku iraahdaa bulshada saddex dhaqan ayaa jirto Soomaaliya. saddex dhaqan afraad ma jiro. dhaqan waxa la yiraahdaa dhaqan siyaasi oo siyaasad u carara. dhaqanna waxa la dhahaa dhaqan dhaqaale oo dhaqaalo gooba. dhaqanna waxa la dhahaa dhaqan bulsho. waxaan qirayaa idaacada Beerlulo inay tahay dhaqan bulsho oo u naxariisto u daryeelo u taagan sidii ay bulshada ay mataqaanaa ayadu horumarin iyo wanaag iyo maxaan ku iraahdaa heer wanaagsan u gaarsiin lahayd. hadalka hala yareeyo ayaa la yiri lama soo koobi karo. aniga shamsa ahaan idaacadan way igu dheer tahay maxaa yeelay waan dhageystaa idaacad kale kuma xirnay. marka idaacadan aad dhageysatana faa'iidooyin badan iyo waxaad ka gaari doontaa aqoon saa'id ah iyo naxariis tiro badan iyo bulshada inta u baahan tahay oo dhan inay uga adeegto si taxadir oo hufan oo maxaan ku iraahdaa bulshada wax u tar ah. waxaan ku gabagabeynayaa idaacada hadalkayga deegaanka Hiiraan degmada Beledweyneba weyn daraasad ku saabsan oo barashada ku duman markii doc kastaba la dayay idaacada istira idaacada Beerlulo ku heshay darajooyin badan. deegaamo annaga Hiiraan ka durugsan ayaa laga soo dalbaday. cilmiyo kala duwan ayay bulshada u duntaa. dhalinyaro dooraba bulshada wacyigelin u duma kuwooda damiina bay dubnad kula shubtaa. aad iyo aad u mahadsantihiin. waxaan mar kale iyo mar saddexaad iyo mar afraad idaacada Beerlulo hambalyo kuwii ilaahay dhibaatooyinka oo mataqaanaa ummadooda ay ugu dadaalayaan ka difaaca garabkiina ilaahu idin kala horumar iyo saa'id aad u shaqaysatiin ilaahay baan idinka baryaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.